waxaan isku dayaayay inaan dareenkiisa ka hadlo waalidka codsanayaayo waxaa u badan tihiin waalidiin waxaa noqon doontaan waalidiin dhammaanteen mas-uuliyiin waxaa idinka codsanayaan waalidka haddii aad caruura dhashaan ay noqdaan ilmo baahi gaara qabo ama aragga ama maqalka ama xubnaha jirka muuqdo ama kuwa qarsoonay maskaxda la midka ah please soo dhaweeya dareema inay wax baran karaan waalidkeyga waxaan dhahayaa oo halkan hadda igula sugan hooyaday xaliimo maxamed reygal aad iyo aad hooy u mahadsan tahay waxaan bilaaway galaaskii shanaad markaan Soomaaliya khaasatan Kismaayo ku qaatay in caqabado badan ay igu dhaceen caqabadahaas ay ka mid yihiin in ardaydeen iyo waalidkii dadka bulshada aan macnaha in badan loo baraarugsaneen bariga in dadka baahida gaarka qabta la soo dhaweysto ee dadka dhex galaan bulshadana ay ka mid yihiin xaqna ay ku leeyihiin loo fahansaneen markaan galaaskii shanaad maraayay baa waxaa dhacday inaan waayo waxbarasho aan sii wato waxay danta igu qasabtay waalidkeena igu garab istaageen khayr Allah siiyo inaan Kenya aado u doonto iskuul aan ka heli karo waxbarasho dhameystiran ah halkaas ayaan ku soo qaatay dugsigii dhexe sarena waxaan ku soo qaatay college Nakuru Kenya oo aan ka mid ahaa arday Soomaali kaliya aan ka inta kale ajaanib waliba aanan muslim ahayn waxaan go'aan ku gaaray xanuunkii waxbarashada aan soo maray dareenka lahayd ma aysan iga helin inaan wax barto oo aniga bas aan ku maala aan ku shaqaysto laakiin waxaan rabay nacfiga inaan u soociyo ardayda Soomaaliyeed ee yaryarka ee soo koray ee baahida gaarka qabo waxaan bilaabay markaan soo qabanay 16 inaan bilaabo aasaasi iskuul ay ku bartaan caruurta baahida gaarka qabo ee helaan macallimiin tayeysan anoo adeegsanaya wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha waxaa qayb ka noqday inaan helo arday soo saaro ay wax bartaan markaan arday ansixiyay